Hello, my name is Willie Jett, and I'm the Superintendent of St. Cloud Area Schools. First and foremost, I would like to say thank you for this opportunity to present some information to you as we are in these unique times across the country, across the state, and across our community. We're here today to talk about distance learning and things that you can expect as it relates to the COVID advisory and District 742 and how we are going to handle educating your young person. So magacaygu wuxuu dhahay Willie Jett waxaan ahay macnaha Superintendent-iga School St. Cloud Area School District waxaynu mataqaanaa halkan iskugu imaano dhahay waxyaalaha dhacayo oo ku saabsan cudurkan loo yaqaano COVID-19ka oo saameeyay adduunyadii iyo gobolkeena iyo bulshadeena saameeyay ayaa mataqaanaa warbixintiisa ayaa mataqaanaa meeshan kaga hadlaynaa waxa kale oo dhahay waxa loo yaqaan distance learning taasoo ah waxbarashada guriga qaabka aad u sameynaysaan iyo waxa aad ka rajaynaysaan mataqaanaa inaad ka qabataan marka aad sameynaysaan waxbarashada guriga maadaama cudurkan uu ku noqdo caqabad waxbarashada caadiga ahayd. Again, this is a time for us to share critical information as it relates to educating your children. We want to make sure that we provide access and opportunity for all during these unique times. One of the things we want to make sure is if you have questions, to please contact us in the St. Cloud area schools. Again, we want you to be safe, we want you to stay healthy, and we want to make sure that your children have the chance to be educated. Mar labaad wuxuu dhahay waxaan rabaa in aan mataqaanaa idinkala hadlo waqtigan ayada waxbarashada qaabka loo baranayo iyo fursadaha iyo marinka aad u mari kartaan in ilmihiina ay wax bartaan oo markaa aysan mustaqbalkoodii uusan waxba iska bedelin oo waxbarashadii qaabka u wadi lahaayeen iyo fursadihii aad leedeen sidii lidin siin lahaa taasoo marinkeedii iyo warbixinteeda ay helaysaan waxaana mataqaanaa aad kala xiriireysaan degmada iskuulada si aad warbixintaas u heshaan iyo fursadahaas ayaga ah. At this time, I'd like to introduce Lori Posh, our Executive Director of Learning and Teaching, to explain to you all the ins and outs in terms of distance learning. Marka wuxuu dhahay haddana waxaan rabaa inaan idiin baro aad ku soo dhawaataan gabadha loo yaqaano Lori Posh oo ah agaasimaha guud ee waxbarashada iyo mataqaanaa teaching and learning qaybtaas ka ah taasoo idin sheegi doonto waxa uu yahay distance learning-ka ama barashada guriga waxaad u baahan tihiin oo ku saabsan warbixin naga siinaysa. Thank you for the chance to be with you today to talk about how we continue to educate all of our children. Distance learning means that we are still delivering information and education to our students, but we're doing it at a distance. Each of you should have at least one computer, iPad, or Chromebook at home. If you do not have one, please make sure that you call the district hotline number or your child's school. Dr. Lori waxay dhahday waxaan mataqaanaa ku mahadsantihiin fursadda ay siiseen inaan idinla hadlo waxa aniga ka hadlaya dhahday waxbarashada distance learning-ku waxa uu yahay waxay tahay waxbarasho aad guriga ku baranaysaan oo markaa fasalka caadiga aan lagu baranayn laakiin waxbarashada caadiga sideeda ayaa u wadaysaan waxa kale oo ay dhahday waxaan rabnaa waxbarashada ayada anu kasto inuu xaq u leeyahay inuu haysto waxa loo yaqaano macnaa aaladaas oo ay ka mid tahay iPad mase computer wax uu ku barto waxbarashadiisa inuu haysto haddii wax su'aal mase arrintaas wax ku saabsan ay wax ka siiin waxa soo wici kartaan lambarkeena hotline-ka ah oo aad laga xiriiri kartaan oo idinka caawin kara arrimaha ayaga. All of the information can be found on our district website, which is www.isd742.org. The information will be translated in both Somali and Spanish. So, Lori waxay tiri mataqaanaa warbixinada ayada ah waxaad ka heli kartaan mataqaanaa website-keena districtka oo mataqaanaa aad ku geli kartaan www.isd742.org. waa website markaa gelayso waa www oo kala ah and isd742.org. Our preschool students and our elementary students will be using a platform called Seesaw. That platform lets our teachers communicate lessons and information to you and to your children. That platform, directions for that, videos, and other login information can all be found on the website.
waxa ay mataqaana loo dhahday waxyaalaha waxbarashada ilmaha yar aan ku caawinayna aalad waxaan isticmaalaynaa loo yaqaano siisow taasoo macallimiintooda ay cashiradii maalin walbo ay soo gelinayaan halkaas ay kala xiriirayaan iyo mataqaana waxa ay ku gal lahayeen oo ilmaha qaabkay u gal lahayeen wuxuu ku yaalaa website-keena oo laga heli karaa. Our secondary students will be using a platform called Schoology, and it's something that they are very familiar with. They've used it throughout the last couple of years. We know that as parents, sometimes it's hard for us to know exactly where to go, but especially for our secondary students, you can trust that they know exactly where they need to go to find all of their lessons from their teachers. ilmaha waaweynna waxay dhahday waxay isticmaalayaan waxa loo yaqaan Schoology-ga kaasoo cashiradoodii wax walba looga soo gelinayo. waxay dhahday waxaa mataqaanaa nasiib ah ilmahan waaweyn way yaqaanaan Schoology-ga meesha laga gelayo iyo sida loo gelayo iyo sida loo isticmaalayo. annagaan waaweyn xataa way naga badiyaan sidaa darteed ayagaa mar walba waxay yaqaanaan nidaamkii iyo qaabkii u gal lahayeen iyo meesha ay ka heli lahaayeen warbixintooda. Teachers will have lessons posted on either Seesaw or Schoology by 10 o'clock every morning. Students then have from 10 o'clock in the morning until midnight that day to finish the lessons. Attendance will be taken by the activities and the interactions that students have. Attendance will be recorded the next day, and you will receive a call if your child has not done or not participated in the lessons that were posted. cashirada waxay dhahday Lori in waxa la soo gelinayaa maalin walbo 10 subaxnimo markay tahay ayaa loo soo gelinayaa canug kasto waxaana laga rajaynayaa canug kasto inuu halkaas sameeyo wuxuu fursad haystaa maalintaas 10 subaxnimo ilaa iyo mataqaanaa habeenkii inuu ka shaqeeyo canugii aanan sameyn hawshaasi waxay gelaysaa waxa loo yaqaan attendance-ga ama imaashaha iskuulka oo kale maalinta xigta ayaa loo gelinayaa marka canuga inuu maqnaayo oo kale markaas waxa laga yaabaa in lagu soo waco oo arinta lagu soo waco marka cashir walba 10 subaxnimo ayaa soo gelinaya halkaas ay ka helayaan. In addition to the telephone number that we mentioned before, the teachers are ready every day between 10 o'clock and 3 o'clock in the afternoon to answer questions that you or your children may have. They can connect with their teacher either by their school phone number, through Seesaw or Schoology, or through the district email. Our teachers are ready to meet the needs of your children because they really are our children too. Lori waxay tiri macallimiintu mar walba waxay diyaar u ahaanayaan maalin walba 10 laga bilaabo ilaa 3 galabnimo in wixii su'aalo ah ay mataqaanaa ay ka caawiyaan oo markaas canugaas uu lagala xiriiro macallin kasto ardaygiisa wuxuu diyaar u yahay 10 subaxnimo ilaa 3 galabnimo halkaas oo kala xiriiri karaan oo wixii su'aalo ay mataqaanaa weydiin karaan haddii su'aal aad qabto wuxuu la xiriiri karaa iskuulkiisa oo kale oo kala hadli karaa arrintaas. waxaan rabay inaan kugu daro intaasi haddii warbixinta arabtaan ayadoo turjubaanan oo af Soomaali ah waxaad ka heli kartaan website-keen iskuulka districtka oo adinkoo galaya mataqaanaa www.isd742.org waxaad ka heli kartaan marka qaybtiisa midigta ah ayaa waxa ku qoran Soomaali halkaas aad ku dhufanaysaa then wixii warbixino ah oo turjubaanan oo luqadeena ku waxaysan halkaas ayaad ka heli kartaa oo warbixinadii aad u baahantahay dhan halkaas ku jiraan wixii marka aad gudaha ka sii baartana waa helaysaa warbixinada dhan. At this time, I'd like to say thank you to Ahmed and Mohammed for making this opportunity or for giving us this opportunity to communicate with you. I'd also like to say thank you to you, the listening audience, for taking the time to just listen. Please understand again that educating your young children is at the utmost of importance to us in St. Cloud area schools. Again, stay well and be healthy. wuxuu dhahay mataqaanaa wiili waxaad celinayaa Axmed iyo Maxamed oo hawshan mataqaanaa idin soo gaarsiiyay waxaase mataqaanaa ku dardaarmaya canug walbo iyo mataqaanaa waxbarashadiina inaad ku dadaashaan waxaan idin leeyahay caafimaadkiina ku dadaala iyo mataqaanaa sida ammaanka aad ku joogi kartaan dadaal kasta sameyn kartaan oo mataqaanaa iyo inaad dhegeysataan oo ku mahadsantihiin.